waxa ka soo baxaya dad iswaxaynaya waxa ka soo baxaya dad qaylinaya waxa ka soo baxaya qaar aad moodayso inay waala yihiin waxa ka soo baxaya mid gaalnimo ku baaqaya aad furto maxaa ka soo baxaya kelmadeennan oo sida Sheekh Xuseen sheegay ku saabsan dhibaatooyinka ay leeyihiin baraha bulshadu waxaan ka horeysiin lahaa qodobo dhowr ah ka horeeya waxa weeyaan baahida aynu u qabno waanada macnaheedu inaynu iswaanino ragga iyo dumarka iyo guud ahaan iyo gaar ahaanba baahida aynu u qabno baahidaynu qabnaa waxa weeye taraashinka iyo cunada iyo cabida aynu qabno mid ka sii badan wacdigu wazaadul qulub qalbiga sahaydiisa weeye saadaradeed ba qalbigu wuxuu u baahan yahay markuu waqti joogaba in ilaahay la xusuusiyo iyo aakhira iyo diinta ilaahay ilaahay baa wuxuu wadakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin waanadu waxay anfacaysaa dadka ilaahay rumeeyay subhanahu wa ta'ala waxay anfacaysaa qofkan weel buu leeyahay weelkiisa soo jeeda marka ilaahay waxaan ka baryayaa inuu naga dhigo kuwii ku waana qaata waxa loo sheegayo marka la ilaahay wuxuu subhanahu wa ta'ala isagoo ka waramaya arrinta إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون تدك إلهي الرمي وحوية أستانتو ضايتهاي كوا مركا لحسوسية إلهي يا آخرة إلهي يا آخرة مركا لحسوسية ويوان توبة sidaa daraadeed ayaa dumarkii asxaabtu Allah ka raali noqdo nabiga ilaaha hadlay sallallahu alayhi wasallam waxay ku yiraahdeen yara naaqus ambara fayrka waxay ku yiraahdeen nabi Allah waxaan ka codsanaynaa inaad maalmaha qaar waana noo samayso sida ragaba aad u waaninayso markaasuu nabigu u sameeyay sallallahu alayhi wasallam muhaadarooyin u gaara sida kuweenan oo kale marka waxay u codsanayeen dumarku waxay arkayeen inay u baahan yihiin waanada iyo wax sheegmada sidaas oo kale ayaa wuxuu waanin jiray maalin buu waanin jiray ama laba cisho usbuuci asxaabiga Abdullah ibn Mas'ud la oran jiray marka waxa jeclaystay dadkii dhageystayaashiisa waxay yiraahdeen waxaan jeclaan lahaa waanada inaad noo kordhiso oo aad noo badiso markaas wuxuu kaana yatakhawaluna fil maw'ida nabigu sallallahu alayhi wasallam waanada uu noo kaadin jiray si aan xiiso ugu yeelano oo aan u jeclaano marka taasi waa taa weeye waxaan markaa kelmadeennan ay u taagan tahay kayfa nakunu saalihiin wa muslihiin sidee baynu noqonnaa dad wanaagsanaada oo waxna wanaajiya intaynu abuuranahay waa intaa waxaynu adduunkan ugu abuuranahay inuu qofka muslimka ah wanaagsanaado waxna wanaajiyo kaalinta markaad qaadato ayaad fahamtay halkan wixii lagu keenay iyo sirtii nolosha معناها waxay noo tilmaamay suurada la yiraahdo suuratu al-asr ee culimada qaar kood ay tilmaameen inay dadka ugu filan tahay wacdi iyo waano sida aymada qaar kood ay xuseen ilaahay baa wuxuu wal asr innal insana la fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr macnaha suuradu waxa weey bani aadamku sidoo u dhan yahay khasaaru ku jira khasaaru dhexda ugu jira illa laba qolow mooyaan ama hal qola khasaaraha ka baxayo dadka naftoodii wanaajiyay waxna wanaajiyay macnaha qaybta hore ayaa tilmaamaysa
آمنوا وعملوا الصالحات انت سوحي الشيء سوحي نقدين دد وناكسن ونفتو ذي كأتكاضي وإيماني عمل الصالح كوب صدي وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر حق يصدر دار من إيا صبرك يدنا وحي الشيء وحي نقدين دد مصلحين أو وحواناتي إلا marka dadka xaq u dardaaranto wanaagaad faraysa oo xumaantaadu diidaysa oo dadka toosinaysa waa muslix baatay muslix dhibaatada ka timaada arintaana sabir baa loo yeelanaya marka midkaynu taaganahay waa midka hadii labada arrimood la inaga helo rag iyo dumarba oo qofku kaalinta qaato intuu naftiisa ka adkaado inuu bulshadiisa iyo ehelkiisa iyo aqaaribtiisa iyagana toosiyo wuxuu gartay sirtii iyo xigmadii loo abuuray wuxuu ku dhaqmo hirgeliyay macnaha suuratul asr ay ka hadlayso waxyaabaha in arinta kaga faa'iideysan karno waxa kamida qodobka koobaad inaynu ka faa'iideysano waqtigeena الوقت هو الحياة وقت قنوة نرشي هذا أوفير ستان وقت جين وصعنا وحين كفى أنت كفى إذا سنة إن أنا رمتي ويرتها رجي الدمر بمرك الله يسكتر هذا وقت جين ونو كوبية وقادة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وحوت الماضي أعمار الأمة بين 60 و70 عمرك ومدني عمر الغالب كودو ولحدنية الضباط انت كدحيسه وحنا الله تلمامابا ومدن سوماليد الله يراado dadka daraasada ku sameeyay in cimrigoodu intaaba ka gaaban yahay oo konton uu ku dhow yahay marka la isku celceliyo hadda cimriga hadda dib ugu noqoto waxaad ka jaraysaa 15kii aynu ku qaan gaarayna ama ilaa 15 jir intaynu soo gaaraynay oo aan waxba la inaga qorayn oo aynu sabiya caruurahay hadda waxaad ka jaraysaa inta inoo soo hadhayna 3 meelood oo meel oo intaynu hurudnaa ilaa 24 saacadood 8 kamida baynu hurudnaa inta ku soo hadhay waad shaqaysaa ama shaqo guriga ha ahaato ama shaqo dibadda ha ahaato hadda wixii soo hadhayba uu yar yahayba intii ku soo hadhayna haddaad ku ciyaarto waa nasiib darro weyn sidaa daraadeed ayaa diinteena quraanka iyo xadiidka nabigaba marka aad eegto arinta waqtiga aad bay u adkaynaysaa nusuusta quraanku wuxuu inooga warramay dadkii naarta ilaahay u galiyay ilaahay naartiisa inaga nabad galiyay ayaa cawday way qayliyeen way baroorteen ilaahayna uu canaanto markaas wuxuu awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar waja'akum an-nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir sabtan cimri idin siiyay ilaahay cimri aku waana qaadan lahaydeen sawkii idin yimi rasuulkii idin digayay maxaa imika u cabanaysaan oo qaylinaysaa naarta galabu ilaahay dadkii waqtigooda dayacay wax idin hiilinaya ma jira maanta marka halka waxaynu ka aragno aayadu inoo cadaysay nasiib darrada ku dhacday dadkii ka faa'iideysan waayay waqtigooda dayacay ama filim bay ku qaateen ama riwaayad ama sheeko ama macsiyo iyo dambi ama iska warwareeg ayay ku qaateen diin ilaahay iyo cibaado iyo amal saalixa midna uga faa'iideysan arinta isagoo ka digaya hadaba nabiguna sallallahu alayhi wasallam ayaa daliil dhowra ayuu inoogu baraarujiyay waqtiga ilaahay uu nasiyo nicmada inaynu ka faa'iideysano adduunyada ka faa'iideysano si aakhiro inoo anfaco markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam igtanim khamsan qabla khamsin qofka muslimka uu la hadlaya amar buu siinaya wuu la talinaya markaas wuxuu qof yahow 5 arrimood ka faa'iideyso intaanay 5 arrimood kugu imanin ka faa'iideyso noloshaada intaan geeridu kugu imanin hada waxa weeyaan noloshu waa waqtigii ka faa'iideyso dhalinyaranimada intaan gabowgu kugu imanin ka faa'iideyso caafimaadka intaan cudurku kugu imanin
كفائدة فراقية جانس كان لا انتانو مشغولك كوغو إيمانين كفائدة مالك إيا ديغدو إلى هاي كسيي انتانو فقرك كوغو إيمانين يعني تلوين هاي تلا قيمة بدل ولبا أرأي النبي واستعمالها يا وحو اغتنم قنيمة ذو حوية وحقالي وصدق صاروهاش صدق صاروهاش كقنيمة يسال قولي كقنيمة هدين عدو فوضى يسترنه وحوله عدو هيستاين لسو وريقنه قنيمة لا يراها مال قالي هينو مدى كوبانكو هاللوي marka tan waa sidaas oo kale deeqadan Ilaahay uu ku siiyay cadawaynu kala soo haraynaa naftiya shaydaanka la yiraahdo naftiya shaydaanku dagaal bay nagula jiraan inayna qaniimada Ilaahay uu nasiye ka faa'iideysanin markaasuu leeyahay nabigu ka faa'iideysta sallallahu alayhi wasallam mar labaad wuxuu tilmaamay dadka intooda badan inagaaba kamid ah inay kullu go'ayaan oo aanay ka faa'iideysanaynin laba nicmo لبدا نعمة وامح نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ لبدا نعمة دتك وي كل قوين كمنا فائديستان وعافماتك هي جانسك قفك فراغ بو ليهي واختبو هيا وهذا عافمات قبا بلا توفير صدق وين الحساب تنتاتر واقو كوبريه طلو وح الدنيا آخرك وانفعه طلو محلتني عملات سميس طلو ميا وقتكم ميو كاضيع طلو محاد خير قبط طلو محاد صدقه بحس محاد وعد دغيست محاد ذكر لتني محاد دنا دويه سميس وين الحساب تنتا مشغول كنا واساس وكلو قفكو de markuu mashquulsan yahay waynu aragnaa oo fursado badan baan ka faa'iideysan karin mar saddexaad ama xadiis saddexaad nabigu wuxuu xusay sallallahu alayhi wasallam nicmada waqtigu maalinta qiyaamaha illa inna weydiin doono markaas wuxuu qofku markuu aakhiro godka ka soo baxo maxkamadda ilaahayna uu soo taago afar su'aalood baa la weydiinayaa afarta ilaa uu ka jawaabo dhanna uma dhaqaaqi karayo waa la haystaa lama furfuri karayo su'aashiisa ama furaysa ama loo haystaa laba waqtiga la xiriira afarta su'aalood waxa weeye nicmooyinku ilaahay adduunyadii siiyay miyuu ka faa'iideystay mise uu dayacay afarta laba waqtiga la xiriira waa cimrigiisii iyo shabaabkiisii intee buu soo jiray ama ha weynaado ama ha yaraado su'aal baa u taagan maxaad kaga faa'iideysay iyo waqtigu waliba dhalinyarada ahaa oo waqtiga kii si qaalisanaa labada su'aalood kale waxa weeyaan cilmigiisii iyo xoolaha Ilaahay siiyay xoolihii maxaad kaga faa'iideysay cilmigii iyo aqoontii Ilaahay ku siiyayna maxaad uga faa'iideysay afarta su'aalood maxkamadda Ilaahay ma ka dhaqaaqaysid ilaa aad ka jawaabto calaamatu su'aal weyn bayna hortaa taana jawaabteeda waa inaynu diyaarsano oo runtii waqtiga inaga dayacan aynu dib ugu noqono mas'uuliyadaasi aynu uga gudubno waxaan soo gudbi lahaa marka mawduucaynu xusuusinaynaha adrar التواصل الاجتماعي waxaan maanta loo yaqaan baraha bulshada iyo dhibaatooyinka ay leeyihiin baraha bulshada waxyaabaha bulshada ama ummaddu ku wada xidhiidho Facebook Instagram WhatsApp iyo meelaha kale lagu wada hadlay magacyada badan ee gaaladu magacyada ay ula baxeen ee ay dadka ku hagayaan ay ku jahaynayaan ugu horeyn waxa haboon inaynu fahamno markii aynu imika sheegaynay ee la xidhiidhay waqtiga waxa ugu weyn ee dadka maanta ka lumiya waa meelaha soo kaga lumaa waliba dadka daayirta hooyooyinka waaweyn iyo odayaasha ma aha laakiin waa dabaqada dhexe bulshadeena iyo dhalinyarada iyo ubadka gacanta ku haysa ee wax baranaya ee soo koraya haday masaajid joogan iyo haday madrasad jooganba أول ما يضيع الوقت هو التواصل وحاوه الرأي وقتها قالك أين ويدارينيا آخر الله إن ويدين دونه وبراه بالشدة ما لنا وين مالا كهد لي وجامعات هيدبا وحن سؤالي انتاكو قارتان
baraha bulshada 24 saacadood nin dhalinyarada wuxuu ugu yiri 8 saacadood nin xafladii fadhiya wuxuu 8 saacadood ayaan ku qaadanaa runtu sheegay been oran karnaa oo markuu waliba yareeyay 8 saacadood hadduu baraha bulshada ku qaato intuu Facebook faaqidayo iyo inta uu meelaha kale ku jiro ee uu ka sheekaynayo ee uu wax ku qorayo ee uu ka madadaalanayo ee geemisu ku ciyaarayo 8 saacadood oo hurday marka lagu daro waqtigii 24 ahaa maxaa u soo haray waxa u soo haray intuu wax cunayay ama baydhanayay ama dharka xidhanayay ama sii socduu soo socday intii kalena intaasay ku baabaaday shaqadiisii iyo waxbarashadiisii iyo cibaadadiisiiba halkaasay ku saqiireen waa intuu dadku kala tegay marka waxaynu u soo qaadanaynaa waqtiga qaaligiisa maanta waqtigan aynu joogno waxa baraka tiray baraha bulshada waayo markaynu halkaasi dhaaf baraha bulshada rag baa samaystay yuhuuddu hormuud ay ka yihiin waxaan la yiraahdaa iclaamka iyo waxa wax lagu baahiyo iyo waxa lagu wada xidhiidho iyaga ayaa asal u ah asal inay u tahayna la iskuma diidana inagu tabac baynu nahay daba socod baynu nahay dadka waxaynu nahay meesha camira waa kan ruushku ku duulay meesha la yiraahdo Ukraine Mareykanka hadla wuxuu yiri waxaan ku celin doonaa ciidamada ruushka al-asr al-hajri asrigii hore aan isgaarsiintu jirin dhagax asrigii nagta ahaa ee aan la wada xiriiri jirin baan ku celin doonaa oo waxaan kala dagaalami doonaa tiknoolajiyada iyo waxa lagu wada xiriiro oo dhan marka macnaheedu waxa weeye taa anaga kaga sarreeyna waxyaabaha yuhuuduna hore heshiiska ugu gaareen ayuu ka mid ahaa saxaafadda iyo dhaqaalaha iyo caalamku wuxuu ku wada xidhiidhay inay gacanta ku dhigaan iyo dahabka iyo lacagta birkaana waa inaynu ogaano waayo marka haddaba iyagu istaraatiijiyadda ka leeyihiin waxa weeye waa laga faa'iideysanayaa laakiin inta iyagu ka faa'iideysanayaan inay badnaato adigu haddaad isleedahay 10 iyo wacd iyo waana uga faa'iideyso iyana waxay ku xisaabtamayaan inay ka badnaato intay kugu luminayaan ama caruurtaada maskaxda lagaga qabsanayo waqtiga aan ilaahnay baraha bulshadu qodobada aynu sheegi doonay dhibaato badan ku leeyahay qodobada waxa kow ka ah al-darar al-akhlaq dhibaatada xagga akhlaaqda ee ay baraha bulshadu leeyihiin waxaan filayaa cidda firi karaysa inaanay jirin bal markaad furto maxaa ka soo baxaya waxa ka soo baxaya gabadh qaawan waxa ka soo baxaya dad qaylinaya waxa ka soo baxaya qaar aad moodayso inay waalayihiin waxa ka soo baxaya mid gaalnimo ku baaqaya waxa ka soo baxaya dad iswaxaynaya wixii akhlaaqda la oran jiray ee ubadka iyo ehelka aynu ku barbaarin lahayn awwalu ma yadurruha waxa ugu horeeya dhibaya waa baraha bulshada maxaynu u baahannahay waxa loo baahan yahay caruurtii in loo sheego oo haddii laga xidhi kari waayo nadkii oo mobilkan smartka ah ee casriga ah sitaan ugu jiro inaad la eegto oo aad u sharaxdo oo aad waaniso oo tiraa ka iska ilaali kaasi waa xaaraan ilaahay baa kugu nacaya cadaab baa lagu mutaystaa qalbiga kugu madoobaanaya caruurtii waa inaad halkay marayaan iyo waxay xiisaynayaan xun wanaad kala dagaalantaa oo waalidka haddii aad tahay halka la isla maraya aad ogaataa waxa akhlaaqda xumaynayo kale baraha bulshada waxa ka soo baxa naas yusamma at-taafihiin dad loo yaqaan taafihiintu waxa weeye dad aan waxba ahayn oo wax laga dhigayo nin kanadiyana ayaa buug ka qoray tashhiiru taafihiin awqifuu idhaar at-taafihiin waa dadka ka daaya dadka aan macnaha lahayn ee uga dhigaysaan wax caalamiya oo caan ah marka aqbiyada dadka loo yaqaan ee aan aqoon lahayn akhlaaqda lahayn iimaan lahayn ayaa laga dhigayaa dad waaweyn oo caalamiina oo wax lagu dayday iyo tusaale ah hadduu yahay mid filim matala iyo mid isqaawiya iyo mid heesa waa adiga arkay dee caruurteena halkan jooga waa kuwa ay ku dayanayaan ilmuhu markuu halkaa ka soo baxo wiilku
waxaad arkaysaa isagoo cagihiisu ay jexjeexayn surwaal oo dhafoorada xeeran oo dabadu ay qaawan tahay inantiina dhan walba waxay iskaga dhajisay wixii ay gashanayd maxaa sidan u galay taafihiinta iyo dadka bilaa macnaha ah ee casriga iyo caanka looga dhigay ayay ku dayanayaan yuhuuddu istaraatiijiyadda ka leeyihiin waxa weeye dadkaasi inay quluubta dadka qabsadaan waana u fushay innagiyo wacdiyayna oo aqalkii nala joogaan ayaa la hagayaa dadka caan baa laga dhigaa markuu 1 milyan ay gaadhaan dadka mushaarikiintiisa ah ee baraha bulshada kula jira wuxuu mutaystay bay ku leeyihiin abaalmarinta la egna inuu helo adduunyadana caan ka noqdo cid waliba ay casuumto oo meel walba uu tago oo halkeennan markay yimaadaan qolo kastuu yahay hadduu qoomuluud yahay iyo hadduu ku isqaawiye yahay waa la soo wada dhaweynaya waxa la waa hebel waa heblaay waa jilaagi waxa weeyaan kii riwaayadda matali jiray waa kii macnaha lahaa kolkaas dhalinyaradu ay daba yaacaysaa qof marka uu hadlayo aanad waxaad ka dhagaysanaysaa aanu jirin marka qadiyada akhlaaqduna waa waxa diinteenu ay u taagan tahay inay toosiso nabiyullaahi muxammedna sallallahu alayhi wasallam waxa uu leeyahay inma bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq ilaahay baa wuxuu ii soo diray akhlaaqdii nabiyadii hore u yimaadeen anaguna si aan u dhamaystiro البر حسن الخلق سما فلك قرآنك إذن فريا وأخلاق ذا ونكسب النبي صلى الله عليه وسلم سما فلك لهيد وتعاونوا على البر والتقوى سما فلك إسوكا شد الليلي وابا أخلاق ذا ونكسن إن أنت أما إنك أما ويلك أما قبرنا قفكم مركو أخلاق لي وقروح بدنيه قولكي سافعا موقالكي سافعا موقفكي سيارتدي سافعا وقروح بدنيه سك استبع qofka isaga ahi haw cadaado haw xoog weynaado haw dhalinyaraade haduu bila akhlaaq yahay uu foolxun yahay wax aan arintaasi waa mid aan la dafiri karin marka waxaynu leen dumarkiina halkan jooga iyo waayeelka caruurta hadii akhlaaqdoodu ay naga xumaato meel aynu ugu aayna ma jirto aqalka ugu aayimayno oo way inkaarayn shaarica haday u soo baxaan waxa la oranayaa ruuxana xagu ka yimi ama qoftana xagay ka timi haduu iskuulka tago markiiba indhaha qabanaya oo qofkani dadku ka soo dhaxbaxaya qadiyatul khuluq akhlaaqdu wax weyn nabi maxamed waa shaygu ilaahay ku amaanay wa innaka la ala khuluqin azim adugu akhlaaq weyn baad haysataa baa nabi allah akhlaaq weyn oo wanaagsan baad haysataa marka walaalayaal arinta ugu horeysa ee uu naga dhaawacay waxa la yiraahdo baraha bulshadu waa ka weyn idinkaaba arkaya bal qof ka soo baxay akhlaaq wanaagsan arag qof wax wacdiyay mooyaan dadka loogu talagalay meesha inay hagaanay jiheeyaan waa dadka bil akhlaaqda dhibaatada baraha bulshadu ay leeyihiin waxa kamida runtii shayga loo yaqaano الضرر العلمي dhibaato xagga waxbarashada caruurteenu isku aqoon maaha markii baraha bulshada iyo tiifiyadu ay soo kordheen iyo inta aanay jirin waa arin macruufa daraasadaha waxa ka marqaati kacaya qolada malcaamadaha qolada iskuulada qolada jaamacadaha daraasadihii la siiyay waxa lagu sameeyay waxa la ogaaday hoos u dhac aad u weyn inuu ku yimi waxbarashadii diiniga ahayd iyo tiimaadiga ahaydba ilmihii telefoonkan sitay muxuu quraan soo xafiday muxuu iskuul imtixaankii ka shaqay muxuu waajibkii loo soo diray laga sugay ka shaqay balaayo kale ku foogay wax bidbid leh oo halkan ka soo baxaya ayuu sidaa u salaaxaya oo aad u xiiseynaya oo shaydaankiina u macaaneynaya mar alla markuu ardayga iskuul ama ardaydii iskuulkii ka yimaado ayuu maqsinkiisii galaya waalidka miskiinka ah wuxuu ku leeyahay casharadii baan raajacaya laakiin barihii bulshadu raajacaya goodho markuu iskuulkii taga ama madrasadiina waalidkii waa la canaananayaa waliba hooyooyinkiina la xidhiidha goobaha waxbarashada waxa lagu oranayaa ilmaha maxaad u caawin weyday ilmahaagu imtixaankii waa kulliita xifdigii buu kulliita maxaa jira daadna kama warhays
marka inuu gidaar ku dhiiba ma inaad noqoto qof qaafila ma hadaa tahay waalidka laakiin waa inaad la socotaa waalidku ama inantu halka ay marayso marka waxbarashadeeni hoos bay u dhacday sidaa daraadeed ayaa ilmaha maanta imtixaan si fiican uga gudbi karaa uu yahay ilmaha hadduu telefoon sitana telefoonkan yara dan ka hadal ama lagu hadla koolka uu kaliya loo isticmaalo fariidnimadu maanta kaasay ku jirtaa dhalinyaro fariidnimadu kan wanaagsan kuma jirto qofka la tilmaamaya hadda inuu akhlaaq wanaagsan waxa la yiraahdaa wallahi inantaasi waa ina wanaagsano telefoonkii dan ka hadal baabay sidataa inanku dan ka hadal buu sitaa macnaheedu waxa weeye waa qof isku tashaday oo waqtigiisa ilaaliyay oo waqtigu ciyaar uga baxayn oo akhlaaq wanaagsan waa ammaan bay imika tahay haddaad adigu haysato mid weyn oo 5 kabradood loo smartphone buu sitaa ama ay sidataa inay ammaanta taasi hadda ammaan ma dadka aqoonyahanka iimaanka leh waxay ammaan u yaqaanaan telefoonka koolka loo isticmaalayo qofka sitaa marka qadiyadaasina ma dafiri karayno oo maanta waxaynu arkaynaa xifdiga xaqu maray dad badan oo xufaadaha quraankii xafiday kana masaxay waa xaqiiqo jirta weey waxa kale oo wuxuu dhimayaa الضرر صح caafimaadka caruurta oo waxaan la dafiri karaynin inuu madrasada lagu sameeyo dacaanka hayba ay sheegayaan meel walba shabaad ka helayso caafimaad daradu baraha bulshada ay u leeyihiin xusuusta ilmaha maskaxdu markasta oo picture ay qaado oo indhaha sawirro badan ay ku qaado way buuxsamaysaa way khalkhalaysaa way kharibmaysaa sidaa daraadeed baa xusuusteedu ay yaraanaysaa xusuusteeduna way yaraanaysaa xifdigeeduna way yaraanayaa maskaxdu waa weel waa muruq waa agab imika haddii aad u fiirsato dadkeenna miyiga iyo dadkeenna magaaladu isku xusuusmayhin waxa laga yaabaa qofka miyiga haddii aad u baxdo wuxuu kuu sheegayaa 10 sano ka hor iyo 2 sano ka hor inta jeer aad u timi hadallada istiraahdeen meesha ku kulanteen wixiiba waad ilowday adiga saxmad baa dhex taagan inta soo qofiyo inta soo gaari iyo inta soo sawir ayay maskaxdaadu qabanaysaa way buuxsantay way wareertay isagana wuxuu joogaa meel cidlaaho maskaxdiisa iyo aragiisa iyo sawiradiisu waa fududihiin marka daraasadaha la sameeyay baa sheegaya dhibaato badan inuu ku leeyahay shayga loo yaqaan daakirada mimariga qofka iyo xusuustiisa wax ku qaban la ku tabarin lahaa wakadalika al-mukh iyo dhibaato badan inuu ku leeyahay maskaxda aynu ka tamarino waxa dhibaato badan uu ku leeyahay ilmaha iyo caafimaadkiisa oo ilmuhu markuu baraha bulshada ku jiro ee habeenkii uu joojiyo wuxuu u baahan yahay hal saaco inta shucaac iyo iftiinkii indhaha iyo maskaxda uu ka baxayo in ayuu si rafanaya oo hurdadii uu ka hakanaya hamoodin markuu qofku ka baxayn markiiba seexanayo ma seexanayo maskaxdiisu waxay u baahan tahay inay ka nasato iftiinkii iyo mashquulkii iyo shucaacii saadaradeed baana isku hurda ahayn qofka baraha bulshada aad u isticmaalay waliba isticmaalaya waqtigu sii seexanayay iyo waqtiga kale qofka kale iska daayay dhibaatada uu leeyahay uu ka mid yahay baraha bulshadu caruurta had iyo jeer aad ka u isticmaasha waxa ku adkaada inay dhaqdhaqaaq sameeyaan oo ay soo ciyaaraan oo ay jirkooda daneeyaan markaas ay iska fadhiistaan ilmahaas waxa laga yaabaa inuu waxna cuno waxna cabo inagu deeb banaan baaba in ordayna dadka magaalooyinka waaweyn iyo jooga ama dabadaha jooga marka ilmihii waxna uu cunayaa waxna uu cabayaa waanu fadhiyaa bahalkaas uu eegaya fayusbihu kawmatan min ash-shahm markaasuu noqonayaa waladkii yara ama inantii yaray kuus xayra ayuu noqonayaa uu buuxsamayaa koodhowta waxa la oranayaa ilmaha macaan buu qaaday ilmaha xayda ka kala dhig ilmaha sidan dheh maxaa ku dhacay ilmuhu waa ilmo la helay oo halkan loo fadhiyo oo dhanna u dhaqaaqina waxa dhacda hooyooyinku mararka qaarkood kolka ilmaha u taag waayaan ciyaartiisa moobilka u siraadaysaayo games iyo tom jeeriye balaayo u geynaysa si uga yara mashquulo hada waa suntiisiiba isaguna dhag uu ku dhagaya markaas uu aamusaya markaas ay yana gambarkii fuulaysa dumar kale u sheekaynaysa ilmihina halkan uu ku jira oo uu ku sii baabaaya
sida daraadeed caafimaad darrada uu leeyahay runtii waa wax laga hadlay oo aad iyo aad macruuf u ah oo aan maanta la dafiri karayn inuu aad u badan caafimaad diini wuxuu ku leeyihiin adraartooda waxa ka mid ah shanaad ad-dararu diini dhibaato xagga diinta ah ayay baraha bulshadu leeyihiin waxaynu ogsoonahay inaanay isku cibaado ahayn oo aanay isku akhris ahayn oo aanay isku dikri ahayn qofka baraha bulshada intaa wareegaya uu wadaa haddana sunnihii baan tukaday weli wuu wadaa markii aan dhameeyeen doonay inaan kaco ayaa uu igu xigaa ma kula hadli karaa haabu waxaan ku iri waqtiga imika intii aan dikriga waday iyo intii aan salaada waday aduu soo Facebook kuma jirin haabu halkan ma Facebook baad u soo gashay mise ilaahay baad u soo gashay ila waqtiga masaajidka la yimaada waa waqtigii ilaahay waqtigii ilaahay weey waqtigii sheekada ma waqtigii ciyaarta ma waqtigii adduunyada ma waa saacadii ilaahay weey subhanahu wa ta'ala marka waxaan kugula talin lahaa imikana intii ku dhaaftay daba qabatee kana markaad masaajidka soo galayso iska xidh oo hadhow markaad baxdo wax wanaagsan kala kulan marka taas waa tusaale laakiin qofku wuxuu gaarayaa inuu quraanka akhri kari waayo xisbigiisii inuu wardii kari waayo inuu sunnihii tukan kari waayo inuu salaadihii haleeli kari waayo kale salaatu duhadii qayb runtii dhibaatada diinta uu leeyahayna waxaynu oran karnaa shaydaanku waa meesha ugu weyn ee uu kala dagaalamaya ama kugu jahaynayo dhibaatooyinka uu leeyahay waxa kamid ah shayga loo yaqaan al-idmaan idmaanku waa maxay waxa weey la qabsi waxa waa la qabsadaa qofkii markuu isticmaalo wuxuu ku noqonayaa sida khamriga oo kale sida jaadka oo kale sida daroogada oo kale markaas qofku sida hadiya jeer wadiga arko qofku markuu saaxibul marqaan wuu dhareerinayaa markuu jaadka arko ama balwada uu arko wuu dhareerinayaa markuu waayana wuu qaadiraysan yahay ama wuu xaraaraysan yahay marka qofkiina saasoo kale noqonay markuu laasimo waxa laga yaabaa inuu ooyo ama barortaba waynu arki karnaa dadka qaar kooda markay moobilkii waayaan jeebadahooda iyo gacmahooda ku walanayo gabgablaynaya qofkii uu digdiglaynayaa sidii ilmihiisii uu lumay ayuu daydeeyaa war maxaa kugu dhacay waxaanan haynin moobilka oo hadii aad weydayna de telefoon cid lama hadli karayo wax ma eegi karayo wax ma xisaabin karayo wuu isku daatay qofkani marka idmaan baa la waxaad gaadhaysaa heero marka dambe aad walaf sida qofka balwada loo kale markaas ay dhibaatadiisuna aad u sii badan markaas kalsooniduna ay kaalmayso dadka qaar kood oo aqoonyahana ayaa waxa laga yaabaa inuu ictimaado moobilka oo salaada Google-kaad ka eegayo hadhow isagaad wax ka baariyo casharka isagaad ka raajiciyo wixii xusuus qorkaaga ha isagaad ka eegayo xisaabtii isagaad ka eegayo balami isagaad ka eegayo haduu waayo muxuu sameeynaa uu isku daadanaya marka qadiyadaasina waa dhibaato weyn oo qofku marka uu la qabsado sida khamrigu ku noqonaya waxyeello weyn oo ka luminaysa qofka naftiisii uu ku kalsoonaa inta markaynu ka soo gudubno maxaynu hadaba u baahanahay waxaynu u baahanahay dumarkii oo imika hor fadhiya xaawaleedii inkastoo cajaladiya waxa la duubaya cid waliba daawan karto inaynu nafteena iyo ehelkeena nafteena iyo ehelkeena waa inaynu ka badbaadinaa oo aynu difaac iyo dagaal galno haddaynaan sidaa yeelin waxaa dhici doona qofku adduunyada iyo aakhira labadaba inuu runtii ka murugoodo adduunkana waxaad ka murugoonaysaa adigoo aaladaa yar inkaartii kaala kulantay ay ku seejisay shaqadii ay ku seejisay xaqii ninka ay ku seejisay xaqii xaaska ay ku seejisay xaqii ilaahay ayaan daro aakhirana waa ka ilaahay ku canaananaya subhanahu wa ta'ala aakhirana wuxuu ku canaananayaa dadkii waqtigooda dayacay marka waxaynu ku soo ururinaynaa bal waqtiga inta hadhay su'aalaha iyo baynu dayn doonaaye naftayda iyo idinkaba
waxaynu isaga digaynaa baraha bulshada qof walowba ama adaasita ama ilmahaaga sita ama ehelka sita wax waliba wuxuu leeyahay xad buu leeyahay war waxaan xadiisa inuu yeelo waxaan xadiisa ayna dhaafinin xad gudubka waxa la yiraahdaa diinteenu way diiday haddii aad doonayso inaad ka faa'iideysato dhinaca khayr kale uga faa'iideyso muxaadaraadkan ka faa'iideyso dadka ku waaniyo ku wacdi oo dadka khayrka u soo jeedi dadka mushaarikiintaada si ilaahay uu kugu qoro حسنات ومالنت قيامها ميزانك إلهي وكوكو صار وناك انت أسان كسور الله أنه ما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته